howlgal ballaaran oo lagu baacsanayay kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa ciidamada daraawiishta Jubbaland ay ka sameeyeen galbeedka magaalada Kismaayo sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheena Cawil Cabdi Cabdullaahi Labaqayd. ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgal ka sameeyay deegaano badan oo dhinaca galbeed kaga aadan magaalada Kismaayo. deegaanadaas oo ay kamid yihiin Beerxaani, Cabdilla Biroole, Cabdi Dhoorre, Haadweyne, Leheley iyo deegaano kale. howlgalkan oo bilowday habeennimadii shalay ahayd ay ciidamadu ku soo hooyeen guulo tiro badan. gebi ahaanba waxaa iskaga firxaday deegaanada ay howlgalka ka sameeyeen ciidamada daraawiishta Jubbaland maleeshiyaadkii ku dhumaaleysanayay deegaanadaasi inta badan dhibaato ku hayay shacabka Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah. ma jirin wax iska caabin ah oo ay la kulmeen ciidamada daraawiishta Jubbaland intii ay howlgalka wadeen. deegaanada ay gaareen ciidamada daraawiishta Jubbaland dad beerta beeraha iyo dad dhaqda xoolaha waxa ay sheegeen saraakiisha ciidanka hogaaminaysay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maleeshiyada ururka al-shabaab iyagoo sheegay in mararka qaar ay ka qaataan lacaga baad ah oo ay ku sheegeen zako, marmarna waxa ay ka qaataan dalaga uga soo go'a beerahooda. dhibaatooyinka ay ka sheegan jireen maleeshiyada al-shabaab ayaa ah midaas, balse hadda waxaa ugu darsantay in caruurta laga qafaasho iyaga oo lagu qasbo in ay u dagaalamaan maleeshiyada al-shabaab. howlgallada ay sameynayaan ciidamada daraawiishta Jubbaland ayaa qayb ka ah howlgal uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. howlgalkaas oo la rabo in lagu xoreeyo deegaanada ka maqan gacanta dowladda. deegaanada ay ciidanku gaareen iyo ujeedka howlgalka waxaa TV-ga Jubbaland uga warbixiyay afayeenka laamaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdinuur Ibraahim Xuseen. saaka arooriyadii ciidamada Jubbaland ee ku sugan aagaga hore ee dagaalka sida Buulo Guduud, Cabdilla Biroole waxay u dhaqaaqeen aagaga hore ee ku wajahan. ciidamada Buulo Guduud ka soo baxay ilaa Yuunti ka soo baxay waxay soo mareen tuulooyin fara badan ayagoo baacsanaya kooxaha khawaarijta ee halka ku dhumaalaysanaya dhibaateynaya dadka Soomaaliyeed. ciidamada waxay soo mareen tuulooyin badan sida tuulada meesha la yiraahdo Shandarmood, meesha la yiraahdo Canjeel, Guba Kibir, tuulooyin badan bay soo mareen. haddana waxay ku sugan yihiin tuulada Canjeel. deegaanka Canjeel marka waa deegaan ay shabaabka aad uga kharabanayeen ku dhumaalaysanayeen oo dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayeen. alxamdulillaah rabbil caalamiin ciidamada marka waxay ugu qabteen si fudud halka oo isku dayay markay ciidamada ku soo dhow yihiin inay wadada galaan oo dagaal sameeyaan. ciidamada baaxadooda iyo xoogooda markay arkeen ay ka carareen. alxamdulillaah wax khasaaro ka dhacayna ma jirto. si nabad ayaan ula wareegnay. shacabka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen ciidamada. dhanka kale ee galbeedka ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka baxeen Cabdilla Biroole ayagoo ku sii jeeda Beerxaani ilaa Buule Xaaji ilaa halkaas ay ku wajahnayeen. waxay la wareegeen tuulada Beerxaani iyo meesha la yiraahdo tuulooyin eredeeda ayay la wareegeen. waxayna ka saareen kooxihii khawaarijtana waxaa la sheegay halka ilaa Jubbada Dhexe inay u carareen. alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana waxaan ku wajahnay Buule Xaaji ilaa halka waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay inaan guul ka gaarno Ilaahay idinkiisa. ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa hadduu Ilaahay howlgalkii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu ku baaqay in si dardar leh uu ku bilowday hadduu Ilaahay Jubbada hoos ayuu si toos ugu bilowday. ereyada wajahada hore ee afmadowna insha Allah bidna kariim maalmaha soo socda ayuu si degdeg ugu bilaaban doonaa. Ilaahay idinkiisa kooxaha khawaarijtana gacanta ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa insha Allah bidna kariim looga saari doonaa deegaanada ay gacanta ku hayaan. insha Allah bidna kariim waxa kale oo ugu baaqaynaa deegaanada dadka jooga inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka Jubbaland oo ay soo dhaweeyaan oo farta ugu fiiqan kooxaha khawaarijta ku dhumaalaysanaya deegaanada si ay u helaan noloshoodii iyo barwaaqadii iyo xaqqa waxay ugu lahaayeen Soomaalida iyo dowlad goboleedka Jubbaland si ay u helaan inay soo dhaweeyaan insha Allah bidna kariim amaankan ay kala shaqeeyaan baan ugu baaqaynaa ayna ka digtoonaadaan kooxaha khawaarijta shartooda insha Allah bidna kariim aad u mahadsantiin. Cawil Cabdi Cabdullaahi Labaqayd, Jubbaland TV, Jana Cabdullaahi.